Shirkadda Apple waxaa aasaasay saddex shaqsi oo kala ah Steve Jobs, Steve Wozniak, iyo Ronald. Saddexdan qofood markii ay rabeen inay bilaabaan mashruuca shirkadda Apple, waxay u baahnaayeen lacag. Steve Jobs waxa uu gaday gaari oo lahaa. Steve Wozniak waxa uu gaday asna calculator xilligaas aad u muhiimsanaa. Halka Ronald oo gaday agabyo kale oo qiimo ku fadhiyay xilliga. Shirkaddii ayaa shaqadii bilowday 12 maalin kadib. Ronald waxa uu sheegay in shirkaddan aysan horumar gaari karin oo rabo inuu kala baxo sheerta uu ku lahaa. Lacagtii oo markii hore ku darsaday waxa ay ahayd $800. Ronald haddii uusan ka bixi lahayn waagaa sheerta uu ku lahaa shirkadda, lacagtiis waxay maanta kor u dhaafi lahayd $45 bilyan. Ronald waa shaqsigii hindisay loogada shirkadda Apple, ma aha tan maanta, waa midii hore. Shirkadda Apple markii hore magaceeda waxaa raacsanaa kombiyuutar oo waxaa la dhihi jiray Apple Computer. Markaas waxay soo saari jireen kombiyuutaro oo keliya. Muddo kadib waxa ay ka tireen magaca computer oo waxa ay la bixeen Apple. Hadda waxa ay soo saaraan agabyo kala duwan. Shirkadda Apple waa shirkadda ugu weyn caalamka oo soo saarta moobilada. Shirkadda Apple waxaa ka shaqeeya shaqaale dhan 115,000 oo shaqaale ah. Sanadii 2012, shirkadda waxay u ahayd sanadkii ugu wacnaa, waayo maalintii waxay gadi jireen 300,000 oo iPhone ah. Dadka badanaa waxay moodaan shirkadaha Samsung iyo Apple inuu ka dhexeeyo khilaaf ama tartan, laakiin sidaasi ma aha oo labada shirkadood waxaa ka dhexeeyo xiriir aad u wanaagsan iyo ganacsi. Tusaale ahaan, shaashadaha retina display oo iPhone-kii iPad-ka ku xiran waxaa samaysa shirkadda Samsung. Haddaan u soo jilicna dhanka dhaqaalaha, haddaan waxaan ka hadlaynaa lacagta shirkadda Apple, waan ku wareereynaa. Tusaale ahaan, shirkadda Apple haddii ay timaado oo keensto lacag kaash ah oo maslaxa dhigto, iyo Denmark iyo Sweden labadaas dowlad haddii ay iskaashtaan oo isku darsadaan lacagtooda kaashka ah, iyo inta Apple soo dhigtay ma gaarayaan oo waxaa badan lacagta shirkadda Apple. Shirkadda Apple waxa ay leedahay 500,000 oo dukaan oo ku kala yaala caalamka. Mar walba oo ay soo saarto shirkadda Apple xayeysiinta moobilada, saacaddu waxay ku taagan tahay 9:41 daqiiqo ama 3:41 daqiiqo. Saacadaas waxay tahay waqtigii ugu horeysay oo iPhone la soo saaray 2007. Markii ugu horeysay oo Steve Jobs ku dhawaaqay, waxaan idiin soo bandhigaa iPhone. Nin lagu magacaabo Tony Frigal waxa uu la yimid fikrad oo ah qalab yar oo lagu dhageysan karo muusiga. Fikirkiisa waxa uu la tagay shirkad lagu magacaabo Real Network, laakiin shirkaddii fikradiis way ku qanci weyday. Haddana fikirkiis waxa uu la tagay shirkad Philips, iyaduna way ku qanci weyday. Ugu dambeyntii fikraddii waxa uu la tagay Apple. Isla markiiba shirkaddii way soo dhaweysay, waxayna u samaysay group dhan oo asiga u shaqeeya. Maalmo kadib waxa uu soo saaray qalab la yiraahdo iPods. Laptop-yada Apple waxaa la oran jiray Macintosh. Macintosh waxaa la dhahaa tufaaxyada noocan ah. Kadib waxay soo gaabiyeen magacii, waxayna ka dhigeen Mac. 60% applicationada App Store-ka ku jira lama soo download gareenin weligood. Mashruuca Siri markii ugu horeysay oo soo baxay, waxaa la rabay in lagu xiro systemyada BlackBerry, Apple iyo Android, laakiin shirkadda Apple ayaa qaadatay, waxayna ku qaadatay sharad ah: waan gadanaa, laakiin Apple bes ayuu ku shaqeynaa, mana ku arki karo system kale. Sidaas ayay Apple ku gadatay. Maantana Siri waxa uu ku shaqeeyaa systemka Apple. 1997, shirkadda Apple dhaqaale hoos u dhac ayaa ku yimid. Micnaha ma aysan haysanin lacag ay ku soo saaraan wax cusub. Bill Gates ayaa u yimid shirkadda Apple, waxa uuna siiyey $150,000. Shirkadda lacag ayuu geliyey si ay kor u kac u sameyso mar labaad.